والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu muuqaalka ku soo qaadanaynaa awoodaha la dayacay ee dabeeciga ah ee haddii aad isticmaali weydo xanuun ay kugu dhacayaan, haddii aad isticmaashana dawada ah dhakhtar ka fogaanaysa. waxaynu soo qaadan doonaa the power of blink, awoodda ay leedahay blinkinku. ma samaysaa waxa uu qofkani samaynayo? muxuu samaynayaa? haweenaydani maxay samaynaysaa? indhaha isku qabanaysaa, haddana way kala qaadaysaa. maxaa soo daadanaya? ilin ayaa ka soo daadanaysa indhaheeda markay isku qabato marna ay kala qaato. waxaan inay faa'iido leedahay oo indhahaaga ay faa'iido u leedahay ma u malaynaysaa? mise qofkan indhahan isku qabanayo marna uu kala qaadayo wax iska useless ah oo maalayacni ayaad moodaysaa. waxa ay ka mid tahay arrinta waxaa la yidhaahdaa luqadda caafimaadka blinking. awoodaha ugu waaweyn ee qof ibni aadani leeyahay bay ka mid tahay ee caafimaadkiisa uu ku ilaashanaya indhaha. adiguna waxaa laga yaabaa maalin oo dhan indhahaagu inay focus ku jiraan oo computer aad eegayso oo mobile aad eegayso oo wax kale aad focus garaynayso indhuhu si ay kuu taagan yihiin oo mar kaliya aanad samaynaynin inaad flash garayso ama aad refresh garayso oo indhahaaga ilin aad ku sii dayso. haddaba blinkinku awood nooceeya buu siiyaa caafimaadka indhaheenna. blinkinka markaad samayso 5 qaab ayuu isha faa'iido ugu leeyahay. lubricantis buu ku sameeyaa, moisture buu ku sameeyaa, protection buu ku sameeyaa, sidoo kale isha waxa uu ku sameeyaa caafimaadkeeda inuu ilaaliyo mustaqbalka. dhakhaatiirtuna waxay yidhaahdaan arrinta shanaad, qofku haddii uu labadii sikinba, hadda minute maaha, saacad maaha, labada sikinba qofku hadduu indhihiisa uu blinking ku sameeyo oo uu isku dayo inuu indhaha marna isku qabto marna uu kala qaado, waxay qofka u suuragelisaa bay dhakhaatiirtu yidhaahdaan inaanay ku dhicin eye draineska. waxaa la yidhaahdaa indhuhu qofka inay qalalaan, inuu ku sameeyo indhaha qofku inuu ka dareemo xanuun iyo irritation, inuu ka dareemo inflammation, inuu ka dareemo qofku indhuhu markaa inay guduudaan ama ay casaadaan. sidoo kale indhaha xuubabka ku samaysma iyo xanuunada ku dhaca in laga waayo. bal awoodda naturalka ah ee dabeeciga ah aad haysato ee haddii aad isticmaasho ishaadii way ku ilaalinaysaa, khashinkiina dabadday kaaga saaraysaa, ishiina way kuu qoynaysaa, araggeedii way ku ilaalinaysaa, caafimaadkeedii wuu ku ilaalinayaa. maxaa lagaga baahan yahay markaa? mar kasta indhahaaga inaad marna isku qabato marna aad kala qaato, marna isku qabato. qabasho maaha indhihii aad waxoogaa isku haynayso, waad isku yara qabanaysaa haddana waad sii daynaysaa. saasumaa isku yara qabanaysaa haddana waad indhihii haddana waad kala qaadaysaa, waad isku yara qabanaysaa haddana waad kala qaadaysaa. awooddani waa awood aad iyo aad u xad weyn. waxaana leeyahay waa awoodda ishu ay leedahay ee dabeeciga ee caafimaadkeeda ay ku ilaashato. waxaa jira xubnaheenna ilaahayna siiyey, xubin kastaaba awood bay isticmaashaa ay caafimaadkeeda ku ilaashato. haddaba ishu awoodda isticmaashaa waa blinkinka. haddii blinkin aad samayn weydo oo indhuhu ay iska taagnaadaan ama aad ilowdo, waa qalad. inaad ilowdo maaha, daqiiqad kasta, labadii daqiiqaba hal mar baa loo baahan yahay inaad samayso. labadii daqiiqaba mar baa loo baahan yahay. sidoo kale dadka qaar baa ku odhanaya ma samayn karo anigu, dadka indhaha isku qabta ma yihi. waxaa jooji, waad isbari kartaa, training baa la sameeyaa. dhowr cisho marka isku qabato ishaadii way la qabatimaysaa. haddaba haddaad samayn weydo maxaa kugu dhacaya? dhakhtarka indhaha ayaad jaar la noqon doontaa. dhakhtarka indhaha kama faaruqaysid. marba ishaada way ku xanuuni doontaa, way ku guduudan doontaa, marba dhakhtar indheed baad ku noqon doontaa, marba dhakhtarkaasaa ugu wareegi doontaa. caafimaadkaagii indhuhuna wuu soo gaaban doonaa iyo mustaqbalkaagii indhuhu. heer markaa aad gaadhin in markaa indhaha caafimaadkoodii hoos u dhaco, araggaagii aad weydo, indhala-aan aad ku dambayso. bal inta waxaasoo dhibaato ahi ay kugu dhici lahaayeen, maxaa kuu diidaya awooddan inaad isticmaasho awooddan yaree fudud oo marna isha isku qabato marna aad kala qaato marna aad isku qabato oo ishaada saa aad u fresh garayso oo ishaada saa markaa natural way markaa caadiga aad isticmaasho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.